kormeerka ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Mudane Xasan Cali Kheyre uu ku tagay xarunta National Theatre-ka qaranka waxaa ku weheliyay xubno ka tirsan wasaaradda warfaafinta xukuumadda Soomaaliya waxaana ra'iisul wasaaraha Soomaaliya uu kormeeray qeybaha uu ka kooban yahay National Theatre-ka qaranka. Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Mudane Xasan Cali Kheyre ayaa kula dardaarmay shaqaalaha iyo madaxda xarunta tiyaatarka qaranka sida wanaagsan ee loo dhameystirayo dhismaha isla markaana uu noqdo goob bulshada Soomaaliyeed lagu wacyigeliyo National Theatre-ka qaranka. Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Mudane Xasan Cali Kheyre oo hadalkiisa sii wata waxa uu sheegay marka la soo gabagabeeyo tiyaatarka qaranka in xariga uu ka jari doono madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Intuu ra'iisul wasaaraha Soomaaliya kormeerka National Theatre-ka qaranka uu ku guda jiray waxaa la xiray wadooyinka soo gala National Theatre-ka qaranka inkastoo markii dambe dib loo furay. Cabdiraxmaan Waabiri, Som News, Muqdisho.